atashada caanka ah Raani Mukherjee ayaa ammaan kala duldhacday jilaaga caanka ah Shaaruq Khan. Labadan jilaa horaantii bishan ay ku wada guuleysteen abaalmarinta National Award oo ah mid kamid ah abaalmarinada ugu qaalisan ee dowladda Hindiya bixiso. Raani Mukherjee waxay ammaantay Shaaruq Khan iyadoo ku tilmaamtay inuu yahay jacaylka naftiisa oo qof noqday, yacni jacaylkii qof ah weeye ay leedahay Shaaruq Khan. Waxay dib u xasuusatay Shaaruq Khan waayihiisii dahabiga ahaa. gabadhan iyo Shaaruq Khan aflaam waaweyn ay iskala soo muuqdeen. Aflaamta iskala soo muuqdeen waxa laga xusi karaa filimka caanka ah Kuch Kuch Hota Hai, Jaldi Jaldi, Veer Zara, Kabina, Alfida iyo aflaam kale. Marka la eegna xilligii Bollywoodka dahabiga ahaa ay aflaam iskala soo muuqdeen. Kuch Kuch Hota Hai waa filimkii ugu weynaa iskala soo muuqdeen labadan shakhsi ee kala ah Raani Mukherjee sidoo kale Shaaruq Khan. si kama Raani Mukherjee waxay sheegtay Shaaruq Khan inuu weli leeyahay soo jiidasho iyo sidoo kale xarakadii hore lagu yaqaanay. waxay ku amaantay doorkiisii jacaylka oo caanka ku ahaa xilligii Bollywoodka masagaashimeeyada iyadoo tilmaamtay in isaga iyada Kajal iyo Jujal ay ahaayeen astaanta jacayl ee filimada xasuusta leh marka la eego dhanka Bollywoodka. Haddaba labadan shakhsi markoodii ugu horeeyay ay horaantii bishan ku guuleysteen abaalmarinta National Award taasoo ah abaalmarin ay ku riyoodaan jilaayaasha ugu caansan fanka Hindiya khaasatan Bollywoodka. sidoo kale koonfurta Hindiyana jilaayaasha ka soo jeeda aad ay u hamiyaan inay ku guuleystaan abaalmarinta National Award. haddaba intaas aan kusoo gabagabeeyaa muuqaalkayga fadlan muuqaalka dadka shalaag inoo saar sii share gareey walaalada asxaabtaada aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.